Kusimaha wasiirka caafimaadka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda Maryan Maxamed Xuseen ayaa maanta degmada Waaberi ka daafurtay ololaha talaalka dabaysha ee carruurta ka yar 5 sano oo laga fulin doono koonfurta iyo bartamaha dalka. Adeeg bixinta talaalka oo socon doonta 27 ilaa 30 bishan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo hay'adaha WHO iyo UNICEF. Wuxuuna qorshuhu yahay in talaalka la gaarsiiyo 2 milyan iyo bar carruura sida uu xusay agaasimaha waaxda qoyska ee wasaaradda caafimaadka Mustafa Awil Jaamac. wasaaradda caafimaadku ayadoo ka duuleysa qorshaheeda ah in la cirib tiro cudurka dabaysha lana dardargeliyo waxaa la doonayaa in ololahan talaalka in lagu gaaro ugu yaraan 2 milyan iyo badh oo carruur ah oo ku nool bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. wasaaradda caafimaadku ayadoo kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah waxa ay diyaarisay dhammaan hawlwadeennadii bixin lahaa talaalka. Gudoomiyaha degmada Waaberi Maxamed Sayid Cali ayaa u mahadceliyay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka Banaadir, wuxuuna dadka degmada ku nool ugu baaqay inay ka faa'iideystaan talaalka. dadka degmada Waaberi ku nool maadaama fursad la idin siiyay oo talaalkii dhan xaruntiina laga daahfurayo inaad ka faa'iideystaan oo ubadka dhalaanka la keeno xarumaha caafimaadka degmada si macnaha loo tilaalo. talaalkan cudurkan booliyada oo cudur halis ah waxa waa ka hortag ayuu leeyahay. marka alwiqaayatu khayru min alcilaaj waa in laga hortagaa ka wanaagsan in la iska daaweeyo. marka faa'iidadaas iyo ahmiyadaas uu leeyahay laga faa'iideysto. agaasimaha caafimaadka gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud ayaa xusay inay rajeynayaan in ololahan kan xiga in wax la taaban karo laga gaaro ciribtirka cudurka dabaysha. talaalkan maaragtay waa noogu deeqay hay'adaha caafimaadka adduunka iyo UNICEF aan noogu deeqeen sida la sheegay talaalka adduunka waa la gataa annagoo talaalkii aan gadan lacag la'aan nagu la siiyay dadkeena aan ku badbaadinayno. waxaan la idinka rabaa in mas'uuliyadda talaalkaas aad qaadataan. dadka maanta inta ka jooga kuwa kalena hala gaarsiiyo. waxaa la idinka rabaa guri inaad u tagtaan oo maaragtay ilmaha talaalan iyo kuwa aan talaalnayn aad kala ogaataan. talaalkan si safmara loo siiyo ilmaha jooga guri kasto. waxaan rabnaa hadduu ilaahay yiraaho kambeynkiisa xigo macno la taaban karo gobolka Banaadir inuu gaaro isbedel in la helo sanad iyo 2 sano gudaheed Soomaaliyana laga helo insha Allah taala. ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Dr. Maryan Maxamed Xuseen oo daafurtay ololaha ayaa sheegtay inay ka wasaarad ahaan ku dadaali doonaan sidii dalka looga ciribtiri lahaa cudurka dabaysha oo halis ku ah nolosha iyo mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed. waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo dhamaystirka ciribtirka dabaysha oo maanta daafurkeedu uu yahay ayna nasiib u yeelatay degmada Waaberi. farxad weyn waxay ii tahay inaan goobjoog u ahaa maalintii maxay ahayd la bilaabayay polio eradication shabeellada dhexe degmadiisa Jowhar ay ahayd maalin ilaahay ogyahay xaalkeedu aad u adkayd wadankeena aan dawlad ka jirin. anoo ku hadlayo magaca wasaaradda caafimaadka waxaan idin ballan qaaday inaad noqon doontiin haliyey hadduu ilaahay yiraahdo ciribtiray sida cudurka furuqa muxuu ahaa booliyadana u ciribtiray inaad noqotiin aad magacaasna qaadatiin. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.